runtii goobihii waanu cayinnay imtixaanka lagu qaadi lahaa dugsiyada hoose dhexe waxay noqon doonaan 4 goobood oo ugu waaweyn waxay noqon doonaan magaalada gudaheega waxaa jiri doona dhowr goobood oo dibadda sida Baki Boon iyo Qulijeed waa lagu geli doonaa dugsiyada labada dugsiga sare dugsiga hoose dhexba waxa kale oo hadda ku tala jirnaa dadkii qaadi lahaa imtixaanka runtii dugsiyada sare isdhaafsi baa jira oo annagana xaggaas looga soo diraa kuwa imtixaanka ilaalinaya annaguna xaggaas aan u dirnaa qolo ilaalin doonta xagga oo loo diri doona gobolada kale waxa kale oo halkan diri doona haddii la yiraahdo qolo la yiraahdo supervisors oo imtixaanada loo dhiibada imtixaan ka soo qaada xarunta oo geeyo meel loogu tala galay iyaga ku dhooda qaybintu waxa ka dhacda Hargeysa waxa loo diri karaa meel kasta ayaa loo diri karaa marka haddii alla ku roon yahay waxaan ku rajo weynahay sanadka maanta inuu imtixaanada si guul ah loogu fadhiisto kuna gabagaboobaan natiijo wacan annagoo muddo dheer ka soo shaqeynay dugsiyada sidii ay sanadka maanta wax iska bedeli lahaayeen waqti ma la geliyana imtixaanka shaadiga ee dugsiyada ilaa imika lama cayimin waqtiga la geli lahaa laakiin waxaan rajaynaynaa bishan aakhirkeega bisha Juun inay ku beegan yihiin waayo fasax wuxuu ka bilaamayaa rasmiga wuxuu ka bilaamayaa Juulay kowdeeda ilaa 31 bisha 8 August waxa kaloo jira iskuulada inay laba kala qaybsan yihiin qaar public iyo qaar private wasaaraddu siyaasad guud bay ka leedahay runtii oo ay ku hogaaminayso wasiirka wasaaradda waxbarashada ay si fiican ugu hogaaminayso kuna jaan go'an siyaasadda dawladda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo dabeedna taariikh baa lagu sareeyay waxa la bedelay waqtiga fasaxu soo galayo waxa la bedelay waqtiga imtixaanku soo galayo marka sanad dugsiga hadda ku jirnaa kalendarkii soo baxay oo iskuul walba yaala waxa ku qoran imtixaanada in la galo hoose dhexe bisha Juun labadeeda ayaa ku cad kalendarkaas oo noo qaybinay gobolka dhamaantii dugsi kasta aanu dhignay ama private ahaado ama public ahaado nasiib wanaag iskuulada badankoodii taariikhda way hoggaansameen hase yeeshee qaar baa iska soo taagay oo waliba private-ka u badan iyagoo ku xisaabtamaya inay qaar ku fikiraanba in imtixaanka qaadi karaan bisha Juulaay oo loogu tala galay ardaydu inay nasato oo fasax gasho ay qaar ku hamiyayaan in imtixaanka waqtiga geeyaan taasina wax la aqbali karayo ma aha runtii imtixaanada qolooyinka dib u dhigay telefoonaan u dirnay waxaanu ku nidhi imtixaanada waqtiga loogu tala galay maamulaha ka beedhow adiga ka masuula wixii ka yimaada